السلام عليكم دمان داوديال ku soo dhawaada wararkii ugu waaweyn ee caalamka guud ahaan Soomaalida oo isugu jira ciyaarihii wararka dhacay dunida iyo dhigaalkeeda ugu horeynba war la helaya tala la helaya daqiiqada yar daawada naamaha dhigtaada aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xilalkii ka cadiyay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan bar kale ayuu madaxweynuhu magacaabay Japan ayaa ciidankeeda cuntay Jarmalka oo isbideen inuu yahay boqorka kubadda cagta ee qaaradda Yurub iyadoo labiyo hal ku durdurisay madaxweynaha Turkiga waxa uu shaaca ka qaaday weerarada ciidamadiisu ay ka fuliyaan kambalada Kurdiyiinta bukaan dhagax nafta laga qaaday shiid la isku nacay dhagax lagu dilay waxa ka dhacday dalka Koonfur Afrika kuwaas waa qaar kale oo badan oo kamid ah qodobada in hay'adaha wadayaal ku soo dhawaada oo ku soo durkad warkeena kuwa ugu doorka roon madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wareegta madaxweynuhu soo saaray weelka qaadista magacaabis ku sameeyay mas'uuliyiin kamid ah xukuumaddiisa waxaana u dhignay wareegtada madaxweynuhu sidoo ujeedo xilka qaadis ku Xasan Axmed Aadan xiraaliyuhu guud ee qaranka mudane laga bilaabo taariikhda maanta waxaan go'aansaday inaan ka nasiyo xilkii iyo xirilaaliyaha guud ee qaranka sida darteed waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalkii iyo hawlkarnimadii aad muujisay muddadii aad haysay xilka qaranka waxaan ku rajaynayaa caafimaad taam iyo mustaqbal wacan ku Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane laga bilaabo taariikhda maanta waxaan go'aansaday inaan ka nasiyo xilka wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida darteed waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalkii hawlkarnimadii aad muujisay muddadii aad haysay xilka qaranka ujeedo magacaabid wareegta madaxweyne magacaabid markaan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay aqoonteeda kartideeda waayo-aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karto mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tash waxaan go'aamiyay in Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan Hoore laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xiriiryaha guud ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in Aamina Cilmi Fariid Badeed laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bukaan dhagax nafta laga qaaday shiid la isku nacay dhagax lagu dilay waxa ka dhacday dalka Koonfur Afrika kooxda dhaab ku hubeysan ayaa waxa ay weerar ku dileen way ku qaadeen qof bukaan oo saarnaa ambalaas iyagoo uga shakiyay inuu dambi galay sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gobolkaasi kooxdan ayaa sidoo kale weerar ku qaaday shaqaalaha caafimaadka ee ku sugnaa halkaasi dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka jawaabay baaqiyo gargaar caafimaad ah kadib markuu ninkan dhaawacmay weerar ay kooxahani ku soo qaadeen markii ambalaaska isku diyaarinayeen inay goobta kaga baxaan ama kaga qaadaan dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa bilaabay inay dhagaxaan ku tuuraan way jidka xidhaan si ay uga hortagaan inuu ambalaasku ka baxo nasiib darrada bukaankii dhaawaca halista ah soo gaadhay ayaa isaguna ambalaaskaasi saarnaa ayaa yiri qof la hadlay waaxda caafimaadka Japan ayaa ciidankeeda cuntay Jarmalka oo isbideen inuu yahay boqorka kubadda cagta ee qaaradda Yurub guuldarro lama filaan ah ku dhufatay Germany oo ah mid ka mid ah dalalka loo saadaalinayay koobka adduunka ciyaartii koowaad ee Group-A ciyaarta oo ku dhamaatay 2-1 ayaa waxa goolka ku hormaray Germany oo daqiiqadii 33aad u dhaliyay Ilkay Gundogan goolkaas oo ahaa rikoore hase yeeshee Japan ayaa sameysay soo laabasho aan caadi ahayn qaybtii dambe ee ciyaarta iyadoo 2 gool oo degdeg ah dhalisay daqiiqadii 27aad ciyaarta labada Group-A ayaa dhexmari doonta Spain iyo Costa Rica hase yeeshee inta ka horeysa waxa 3 dhibic ku hogaaminaya Japan sidoo kale waxa dhacday ciyaar ka tirsaneed Group F oo ay isku arkeen Morocco iyo Croatia taasi oo la isku mari waayay oo noqotay eber ciyaarta labada Group F ayaa dhexmari doonta Belgium iyo Canada koobka adduunka ayaa waxa ka dhacay natiijooyin lama filaan waxaana shalay sidoo kale ay Sacuudi Carabiya ka badiyeen Argentina iyo Lionel Messi waa Maxamed Cabdirashiid Arab TV Hargeysa madaxweynaha Turkiga waxa uu shaaca ka qaaday weerarada ciidamadiisu ay ka fuliyaan kambalada Kurdiyiinta madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarada ciidamadooda ay maalmihii la soo dhaafay ku qaadeen fariismaha Kurdiyiinta kulooyin waqooyiga Syria ay yihiin kuwa bilow ah Mr. Erdogan ayaa sheegay in sida ay Turkiga uga go'an tahay sugidda ammaanka xuduudka ay la wadaagto
madaxda Suuriya. Horey wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in ciidanku ay duqeeyeen ku dhawaad 500 bartilmaameed oo ay leeyihiin maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Syria iyo Ciraaq. Tani axadii xoojinta ficilada militari ee Turkiga ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta ayaa imanaya kadib weerar ka dhacay Istanbul kaasoo dowladdu ku eedeysay PKK oo dhaqdhaqaaqa gooni goosata Kurdiyiinta ee Turkiga. waa Maxamed Cabdirashiid Caroog TV.